geeda maxbuus ku ah dalka Pakistan oo looga shakiyay in uu ka baxsan rabay halkii uu markii hore ku yaalay. intaan u guda galin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsan. geedkan maxbuuska ah ayaa ku xiran dalka Pakistan waxaana silsiladahan ku xiran ee lagu ciqaabay lagu xiray sanadkii 1899 sarkaal u dhashay dalka Britain ayaa uga shakiyay geedkan in uu ka baxsan lahaa halkii uu markii hore ku yaalay. sababtaasi daraadeed ama shakigaasi ayuu silsiladahan intaas la eeg ku ciqaabay ama uu ku xirxiray. sarkaalkan oo cabsanaa ayaa waxaa la oran jiray James waxaana dhacdadan ka soo wareegatay 125 sanadood. maadaama sarkaalkan uu ka dhacsanaa qamrada ayaa ka tustay in geedkan uu baxsan rabo oo uu doonayo in uu xadka ka gudbo. waxaan ahay maxbuus. sarkaal cabsan oo British ahaa oo moodayay in aan halkan ka baxsanayo ayaa silsiladahan igu xirxiray. tan iyo markaasina waa aan jeebeysanahay ayaa ku qoran loox saaran geedka dushiisa. waxaa looxan saaran geedka dushiisa qoray qof ka mid ah dadka deegaanka oo dareen ahaan u hadlaya geedkan maxbuus ku ah sarkaalkii cabsana. si kasta oo ay tahayba geedkan hadda waxa uu ka mid noqday ilaha dhaqaalaha ay ka soo xareeyaan dadka ku nool Peshawar.